السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا آدي هذا ومهتسنتهين maanta waxaan rabaa inaan idin kula wadaago waxaan ogeyn maamulka Trump markii uu xilka la wareegay bishii January in uu bilaabay masaafurinta dadka wadanka sharci darrada ku soo galay saddexdii bilood ilaa ay labadii bilood ee ugu dambeysana dadka Soomaalida ah ayaa si aad ah loo qaadayay oo dalkii Soomaaliya la geynayay haddaba waxa qadka ku jira ciise aadan sharaawe oo ka mid ah dhalinyaradii wadanka soo gashay isla markaana aan loo ogolaanin oo loo soo fasaxin wadanka Mareykanka gudihiisa oo ku dhawaad muddo sanad ah markii uu xabsiga ku jiray bishii hore la masaafuriyay magaalada Muqdisho laga dajiyay haddaba waxaan rabaa marka tallaabooyinkii kala duwanaa ee la marsiiyay markii la masaafurinayay ciise bal inuu warbixin naga siiyo dhibaatooyin uu la kulmay safaaradda Soomaaliya iyo sida dadka Soomaalida ah ay waraaqaha go home-ka ay ugu soo jarto diyaaradda Turkish Airlines oo iyadu diiday dadka Soomaalida inay qaado maxay tahay sababta arrimahaas oo idil ayaan wax ka tahay walaal waxaan soo galay Mareykanka bishii 7 26 sanadkii 2024 macna 2024 xadudkan ka soo galay California San Diego meel yar ka soo galay marka xabsiga markaan ka soo galayna waxaan la gudbiyay qolo yar oo xabsi oo ayagana security oo ICE la gudbiyay meeshaas waqti badan ku qaatay laakiin markii xabsigaas oo California la geeyay waxaan ku xirnay California sideed beri haddana tarasadaasi maray oo wadanka gobolka la soo leeyahay Arizona ayaan laba beri ku xirnay kabacdi waxaa la geeyay Louisiana waatay Louisiana marka waxaad ii sheegtay waqtigaada inta ugu badan inaad ku qaadatay waxaan ognahay Louisiana meelaha ugu badan ee dadka lagu xiray ku jirta wax imisa xabsiya ku taala tiri Louisiana oo dadka lagu xiro walaal Louisiana waxaa ku taalo 12 xabsi waa gartay adigu mid kamid ah ayaad ku xirneen marka ku dhawaad muddo 10 bilood ah waxaan saddex xabsi oo Louisiana ku taala soo maray oo sida Louisiana ku taalo midna waxaa la yiraahdaa Jackson Parish midna waxaa la yiraahdaa Wing Correction mid kalena waxaa la yiraahdaa Jana waa tahay marka xabsigaasi in muddo ayaad ku jirtay sheekada waxaan ka bilaabeynaa marka waxaa jirtay in maalin la idin yimid oo waad u maleynayseen in xabsi kale la idin bedelayo laakiin si toos ah airportka la idin geeyay bal sheekadaasi aniga iyo dadka daawanaya mana dhageysanaya bal warbixin naga sii sidee maalintaasi goorma ah taariikhdu waqtiga ahayd xilligaas walaal wixii ahayd bishii shanaad maalintii bishii shanaad shanteedii ahayd walaal waxaa jiray oo sidaas la socotaan baa waxaa waaye safaaradaha horta way bilaabeen waraaqaha tarxiilka ay bilaabeen laakiin anaga safarkayna maana la ogeysiinin oo sababtoo ah dadka kale sida wadamada kale ka yimid waa la soo wacaa qofku waxa la yiraahdaa waraaq tarxiil ah tahay safaaradda ku soo wacday safaarad qofku bilaadle gurigiisa lagu tarxiila mise waa joogaysaa qofkaas joogis kale qofkii jooga uu jooga qofkii baxaana uu aqbala marka waxaa leedahay safaaradda Soomaaliya anaga si toos ah noolama soo xiriirin oo nama weydiinin inaan doonayn inaan wadankeena ku laabano iyo in kale in anaga nala soo wacay iska dhaafay xataa safaaradda waa wacnay si aan uga hortagno waraaqaha ee safaaradaha daabacayaan safaaradda oo taleefanada way iga qaweysay idna la macaamishi waa weyni markii dambana anaga qasaba waraaqeen waa loo keenay iyo qasaba loo keenay waana kiciimta waa tahay markii xabsiga la idin ka saaray oo airportka la idin geeyay maxaa dhacay sidaas ku ogaateen in la doonayo in la idin tarxiilo walaal ma loo sheegin bani markaan nima sirdoon waay qaab sirdoon amal dadku qaadaan dadka waxay malayaan dadka qaar daacadska ah waanan garanin diyaaro meel ay marayaan marka qorsho waxay ayagu isticmaalaan dadka in transfer wax la yiraahdo gobolada kale la geeyo oo diyaarada la saarayo marka ma kala garanayso qofka ticketka hadii laga qariyo diyaarada dil uu saaro hal mar ay kacdo waxay ka soo degaysaa Turkiga marka anaga walaal waa weydiinay oo kuwa shaqada ku soo weydiinay xagga soconaan dharay wuxuu ma dhahay waxa uu socotiin Atlanta Georgia to Turkey to Nairobi adiga harina diyaarada saarina bareefo laakiin arintaasi ma waxa la idin sheegaya markii airportka la idin geeyay masa intii aad xabsiga ku jirteen marka airportka la geeyay oo diyaarada la koray oo aniga bas aan dhimanahay loo sheegay waa gartay laakiin waxaad ii sheegtay horta ka hor
intii ay arintaasi dhicin in ay weydiiyeen luqadda Ingiriiska ma fahmaysaan aad tiraadeen maya markaas kadibna aad aragteen iyagoo ka wada hadlayo dhahaya war adigu meeqa wadana dadkiis waxyaabahaas aad maqashay iyagoo ka wada hadlayo walaal markii xabsiga la keenay anoo gacmaha ku xirxiran katiinada inaga fureen waxay dhaheen walaal Soomaali ma tiinha okay luqadda ma garanaysa Ingiriiska ma yana Ingiriiska ma garanaysa maadaama hadday Ingiriiska waa garanaysaa su'aalo badan ay ku jawaabayaan marka aad waa dhibsanaysaa qofku oo dhibsana xabsi markii yimaado xogaa yar waa dhibsanaysaa su'aalaha badan laakiin Englishkan wax waad ka fahmaysaan oo eber ma aadan ahayn English waa fahminaha xogaa wax macquul waa ka fahmayno waxaan ma fahmayno kabacdi waxay dhaheen ayaga meel fadhiisteen anagana meel fadhiisani biyina siiyeen waxay dhaheen iyo jooga caadi waaye marka sheekay galeen waxay dhaheen ayaga dhaxdooda waxay dhaheen wadamada Afrikaanka waa dheeriyiin iyo wadamada Afrikaana u badan tagtay marka Senegal iyo Congo iyo Ghana iyo Kenya iyo Ethiopia Soomaali badan tarxiilnay lagu dheen ay macnaha iska wareysanayeen safarada waa dheertahay marka anaga marka aan arintaas aan maqalnay kabacdi waxaan gashay xabsi anaga Afrika u socon marka diyaaradii markii la yeeriyay oo dadku u dambeeyay anaga weydiin maxaa rabnaa walaal xagee u soconaa uu noo sheegay wuxuu dhahay Soomaaliya waxa u socotiin Atlanta Georgia kabacdi Turkey to Kenya to Soomaaliya anaga waa diiday maxaa rabnaa anaga meel u soconaa ku dhaanay sababtoo ah anaga wax lama ogeysiinin safaaradda Soomaaliya lama soo hadin anaga dad waxaa rabnaa oo sakiina Mareykan dib maan ka gelin Mareykan hadda xuduudka lagu qabtay waa soo dhiibnay sharciga wuxuu qabaana anaga macnaha in anaga wuxuu qabaa sharciga qofka Soomaaliga ah in aan la tarxiilin ba sharcigu meesha ku yaal dhigaya waa gar oo wadamada aan la tarxiilin waxa kamid ah Soomaaliya iyo wadamada yar sida maaragtay Soomaaliya Eritrea lama tarxiilo ayada iyo Afghanistan iyo Sudan iyo ay sheegtay inay ku jiraan waa wadamadaas marka dad qaar waa lafsaxay oo Eritrea ka lafsaxay laakiin Afghanistan waa tarxiila Soomaaliya waa tarxiilay laakiin Eritrea bas waa lafsaxay ayagan waa marka waxa waa isbaarada سفارة إريتريا وادي معنا قبل إريتريا للترحيل. واقرت مركا دياردي عدين كلي كدي من ضدك كلا وين راعين وادي دين ما حد عي مركا كدي مركا. والله إني وأنا جوجيين قلت بين قشرين وأنا جوجيين داوع أبويا السنتي لفتح داوعي بدنا يسوق يا كل السعودية مركا هذيك مركز يا كل السعودية هذيك. هل ويلا صومالي هل صومالي. waa gartay marka waxaad ii sheegtay sidoo kale jirdil kale in la idinku sameeyay marka laga reebo in meel galaada gadaale inta la idin geeyay katiinad la idinku xiray in bac madaxa la idin galiyay oo la idin yiri ma baxaysaan oo la idin cadaadiyay walaal way jirtaa qorshaha qofkii bixidiido madaxa bac loo gelina qofka neefta lagu celinina ilaa uu yiraahdo waa baxa guriga aada marka anaga baadii madaxa markii loo gashay neefta lagu dhigtay oo xaaladdu ugu xumaatay pilot-kii yimid oo macnaha time-ka diyaaradda dhici rabay pilot-ku markuu soo dhawaaday naga fureen bacda waxay jeebka gashaday way qariyeen pilot-kii markii uu yimaadeen anagana waxa dhan meel u socono waddanka in amni kuma jiro waa cabaadna ma faad markaas pilot-ku wuxuu dhahay dadka ma qaadaan dad badiidan inay baxaan wadkooda aadaan ma qaadaan pilot-ku xanaaqo naga tagay ka bacdi xabsiga loo ceshay xabsiga markii loo ceshay hadana cun qabateena la saaray qolalka digriina qolal hayna la gashay oo yiraahdo xabsi ciqaab waa gartay oo macnaha dadka lagu ciqaabo oo raashinka looga jaro qol yar oo mugdi waa gartay ku jiro 10 bari ku jirnay kabacdi qolka kiriisada noo imaadeen way naga soo daayeen waxay sheegtay xitaa 10kaasi bari in cuntada la idin diidaa noo sheegteen oo biyo musqusha aad ka cabayseen qolkiina ku taal walaal cuntada waa loo diidaa qof kasta tarxiil soo diido cuntada waa loo diidayaa qofka sidoo hatta marka qaar waxaan dhacdo qolka aba ku jiro ayaa saxiix laga qaada faraha waa laga qaada maaragtay madaxana bacba lagu gelina waa lagu nacsiina si aad diyaarad soo socota aadan diidin waa gartay markiisa anaga waxa kale oo ii sheegtay aan ka hor intaan wareysiga ka qaadanaan xogaa sheekaysanay marka waxa jirtay dharkii xabsiga markii hore aad ku jirteen in la idinka bedelay oo dhar kale la idin galiyay isla markaana la idin qoray inaad dambiilayaal tihiin maadaama diideen in la idin tarxiilo arrintaasina sidee u dhacday walaal horta waxa jirta nimankan waa niman tuuga oo qolada hadda AIS la leeyahay waa niman sharciga ayagu rabaan qof ku dhaqmaan qofka markuu diyaar soo diido waxa laga dhigayaa criminal inuu yahay maadaama waddankiisa diiday maadaama safaaradda Soomaaliya ee aqbashay ninka in damaanad qaaday asaga uu soo diiday macnaha waxa waa criminal noqonaysa waa gartay marka waa laga bedela dadka maarta waddanka laga soo qabtay dadka dilaya meel ugu la xiraaya waa gartay dadka dambiilayaasha lagu daraya macnaha dadka dambiilayaasha lagu daraha marka si marka haduu maxkamadda dhahaa ninka waa criminal waa gartay
taas arintaasaa jirto markaasina tarxiilkaadu wuu fududaanayaa haddii ay kuu qoran tahay inaad dambiilo tahay tarxiilkaa wuu fududaanayaa ciqaabtaadana siday doontaan kaa yeelayaan aniga way noo hajabeen waxay dhaheen iyo kalkaa diyaaradda haddaa soo diidaan dharka jaalaha idii gelina oo high level high level la dhahaa oo dambiiliyaal sarsaraa laydinka dhigaya laydinka dhigaya nalooga hajab waxaad ii sheegtay in ciisow in xabsiyadaasi Louisiana ku yaala ay Soomaali fara badan ku xirnayd tiradana aad ogaateen oo systemka aad ku ogaateen dadka xabsiyada ka shaqeynayeen ay idin sheegeen imise qof ayaa ku xirnayd xabsiyada Louisiana oo Soomaali ah walaal horto xabsiga marka dad waxaa jira wiilal Soomaaliya oo dhowr naga soo horeeyay iyo meesha naga soo horeeyay iyo anaga marka shaqooyinka waxa qabsanaa shaqooyinka meelaha la shaqeynaa maadaama luqadda garanayno shaqooyinka waxa qabanaa oo nadaafadda mabaati iyo xafiisyada marka qof oo isku macaamil laga dhaxeeyo kala weydiinaysa wixii Soomaali noogo marka waxay noo sheegeen 372 qof in xabsiga Louisiana isku xirtay xabsiyada kala duwan oo Louisiana bas gobolka bas laakiin 372 qof mar dabo marka aniga bil amal xabsi ku jiriya martaba gadaal ku weydiinay maadaama Soomaali badan la tarxiilay gadaal ku weydiinay waxay dhaheen 120 qof amal ka maqan oo dal la tarxiilay waa gartay marka waxaad ii sheegtay maamulka Trump inuu yimid adigoo 7 bilood xiran markaas kadib tarxiilka ugu badanna laga bilaabo bishii 5aad ayuu si toos ah u bilowday marka waxay idin sheegeen in dad 200 ku dhawaad ah ay maqan yihiin xabsiyada ay ku maqan yihiin dadkaasina la tarxiilay marka dadka qaab nooca ah loo tarxiilay waxaad ii sheegtay labo in la isku raacinay walaal horta si sharci dhigayo sida wadamada Soomaaliya oo kale iyo wadamada maaragtay dhibaatada macnaha dhibaatada ay ka jirto amni darada ka jirto oo kale sharciga maxkamadda oo la yiraahdo oo meesha maxkamado badan ka jiro maxkamadaha qaar wixii ma angolo in qof Soomaali la tarxiilo amba wadamada dadka sida maaragtay wadamada Suudaan oo kale la tarxiilo ma angolo laakiin mashruuc marka qoladan aysa wixii dhaqaale si ku ilaa rabaan marka dadka marka waa la tarxiilaa marka sabaaradana kulli dib ayaga heshiisa ka dhaxeeyo oo aynu Trump xilliga hadda la joogo asaga wixiis waa lacag iyo hanjabaad iyo lacag waqti marka safaaradda marba hadii waraaq soo dhiibto adiga qofka Soomaaliga laba garab laga qabanaa madaxa bac loo gelin haduu diido marka hore way qiimeynayaan qofka qof diidayahay marka hore bac gelinayaan qofkaas oo xanuunsan ayaa la tarxiilaa waa gartay markii la idin soo celiyay kadib xabsiga la idin keenay oo dambiilayaal la idin qoray qol la idin galiyo mugdiga cuntadii la idin diiday maxaa xigay diyaaradda Turkish Airlines waxaa sheegtay inay ICE la soo xiriireen oo yiraahdeen anagu Soomaali ma qaadayna arrintaas sidee ku dhacday walaal hoosaada la socotid Turkish Airways xogaa dhibaato badan kala kulantay macnaha dadka transit wadankeeda ku marayo Soomaali airportka ku dhiban qofka Soomaaliga Turkiga markuu tago waa iska weynaa labada meel ku socdo miyaa sababta Soomaaliya wax ka jiro oo qoonin marka Soomaalida badan way cabaadeen airportka Turkiga ku cabaadeen safaaradda diyaaradii macnaha waa xawashigeen marka Turkish waxay la soo shaqada ICE waxay dhaheen qof Soomaali ah ma qaadayno ilaa oo qofka familkiisa oo xafiiska tago xafiiska waraaq ka soo jarto qofka soo raali waa qaadayna laakiin qof qasab lagu qaada arin qaadayna waa gartay marka maxaa xigay marka tarxiilkaadii markii xabsiga la idinku soo celiyay kadib oo aad diideen maxaa xigay marka walaal waxaa xigay nimanka horto maadaama diyaaradda Turkish Airways ay diiday qof Soomaali in qaado diyaaradaha kalena in qaadaynin waxay sameeyeen nimankan diyaaradii soo kiristeen oo imaaraadka laga leeyahay diyaarad waxaa la keenay garoonka militariga maadaama dadkan tirada badan aana si bashal loo qaadi karin maadaama Soomaali ku jiraan in qarsoodi loo qaado kaliya weyga loo qaadi karo waxa waa in airport military laga qaado waa gartay airport shacabka macnaha qofka Soomaaliga ama booqi kara ama Soomaaliya u dhigi kara fashal ka imaanayo waa gartay waa xilliga marka diyaaradda militariga laga qaado goormo waa marka xilligaas diyaaradda Imaaraadka la keenayo oo la idinka qaadayo garoonka militariga ee Louisiana taariikhdu goormo bishii 15 ayaa waxa la keenay garoonka militariga waa gartay bisha 2025 waa bishii hadda dhamaato la soo dhaafo 7 bishii hadda dhamaato la soo dhaafo waa gartay marka airportkaas la geeyay Soomaali badan gobolada la keenay waxa la keenay Minnesota waxa laga keenay Michigan waxa laga keenay
adiga goboladana laga keenay Soomaali badan marka Soomaalida ma Soomaali siday wadanka u soo galeen xabsi ku jiraya mase kuwa wadanka gudihiisa laga soo qabtayna way ku jireen dadka intaad ka warqabto walaal dadka gudaha laga soo qabtay waa dad iska yar 42 qof camal ku qiyaasay khalaas ama 45 qof meelahaas u dhaxeeyay laakiin dadka xuduudka soo dhiibay aanan Mareykan wali aan tigin oo xuduudka laga qabtay oo dadkii soo dhiibay ah oo magaalooyinka ahay adiga balaas waxaan ku qiyaasay 230 meelahaas diyaaradaasi 15 bishii la soo dhaafay ee July garoonka militariga la idinka qaaday imisa Soomaaliya hadii aad qiyaasto ayaa saarneed ayaa isleedahay diyaaradaas walaal diyaaradda waxaa hadda ku haynay dadka qaar waa la reebay oo xataa dadka qaar waa laga reebay meesha diyaaradda waxaa ku haynay 67 qof oo Soomaaliya baa ku qiyaasay macnaha dadka marka ma tiri kartid oo dad gadaal ku xiriyin qof hore ku xiriyay marka dadku way kala ilaalinayaan sababtoo ah kursiga ku weysay laba Afrikaan lagu dhijina Soomaalida bal wax yar iiga sheeg diyaaradda marka iyo qaabka la idin saaray waxaad ii sheegtay in la idin wada jeebeeyay gacmo logo xabadka la isku xiray arintaas sidee markaas kadib kursigana la idinku sii xiro suunka la idin xiray diyaaraduna diyaarad military ahayd oo shaqaale oo aysan ka shaqeynaynin oo flight attendant ama hostess oo military bas wixii aad dalbato xitaa military uu ku keenay bal arintaasna warbixiniga si walaal horta diyaaraddu waa international oo diyaarad military ma ahan waa diyaarad soo kiristay diyaaradana waxay ka raskiristay waddanka la yiraahdo Imaaraadka waa gartay mafahad diyaaradda Imaaraadka galay waa diyaarad oo 7 oo waxa saldaha waa diyaarada ugu weyn diyaaradda marka 700 qof camal way qaadaan saan ku qiyaas diyaaradda waa gartay diyaarad weyn ay ahayd marka diyaarad weyn ay ahayd dadka marka la saarayo marka diyaaradda la saarayo waa dhowr wadan ilaa 6 wadan la saarayo oo kala duwan Afrikaan diyaaradda markii lagu saarayo gacmaha waa laga xiraa caloosha lagu xiraa calooshaas laga xiraa lugahana waa lagu xiraa xirgaxta waa lagu dhuujinaa mafahad intaas oo silsilado waa marka oo la idinku xirayo waa silsilado kursiga marka ku filisatana katiinadka lagu sixira saan isku dhaqaajin waa gartay adiga dhanba ma nuuxsan kartid marka hadii aad suuli u baahato maxaad sameynaysaa inta aad saaran tahay suulida marka u baahato nima kula galaayo hal gacan ka furaya irdu tagnana waa gartay marka airportkii militariga markii la idinka qaaday xagee idin xigtay oo la idin geeyay marka oo diyaaradda la idinku qaaday Atlanta Georgia walaal waxaana la geeyay Cuba waddan leeyahay Cuba la geeyay diyaaradda markii ka kacday Mareykan Cuba ay ka digatay saddex wiil oo Soomaali ah oo markaan qiyaasay Soomaali ah oo aan waraysanay laakiin waana la keenay aaliya mafahad marka waxay sheegtay saddexdaas wiil waxay sheegtay xabsiga Guantanamo Bay in la geeyay oo halkaas la idin ka reebay wiilasha Guantanamo Bay laga reebay بعد وسقعد ديارته marka saddex qof markii dejiyay Soomaalida diyaaradu way saqacday xagee xigtay wadanka xigtay wadan Louis Lira asagana jasiirad ku yaalo Latinkaasna wadanka Laos waa gartay Laos marka diyaaradu waa meeshaas ay agargatay dadaal laga dejiyay hadana way soo dhaqaaqday marka sidii bas caasi camal ay u shaqeynaysaa marba wadan ay tagaysaa dad ku dejinaysaa sidii bas camal ay u shaqeynaysaa waa gartay waxa waaye qof walba wadkiisa lagu dejinaa Laos ka tagteen kadib xagee xigtay marka idin walaal Laos ka dhaqaaqnay waxa wadan leeyahay Senegal oo Afrika waa ta Senegal dad lagu dejiyay isagana waa gartay dad lagu dejiyay Senegal oo dhowr iyo 20 qof lagu dejiyay hadana 2 saac joognay waa ka soo dhaqaaqnay waxa imaanay Nairobi waa gartay taariikhda marka Nairobi Kenya aad tagteen goormay ahayd waa 18 bishii la soo dhaafay July 15 ayaana Mareykan ka baxdeen marka 3 maalmood ay sii socotaan macnaha hadda waxa ku daanay meesha la yiraahdo sida maaragtay Cuba kale waxa ku daanay oo wax badan aan joognay Senegal wax badan aan joognay wadka kale Louis wadka kale wax badan aan joognay intaas way xirina waa gartay Nairobi markaad ka degteen marka bal iga sheekay airportka Jomo Kenyatta maxaa dhacay walaal Nairobi marka ay maanay diyaaradda meel oo keesa oo baakilay diyaaradda la dhigay diyaaradda yar loo yeeray way imaadeen diyaaradu markaas diyaar yaayeen oo aniga isugayeen saan qiyaasay mafad waxa ay maatay markii uu horeysay diyaarad soo Suudaan dadku u qaadayso way soo Suudaanisa diyaarad la saaray ayuu waqtiyeedka xirna qofka diyaarada saara way ka ciisay diyaarad waxa ay maatay waadayna bareefada oo Kenya laga leeyahay
Ethiopian qaaday dad Ethiopian ay dumar iyo rag isku jiraan saaran way kacday ka bacdi waxa imaatay diyaarad Juba Airways oo Soomaaliya laga leeyahay wixii Soomaaliya marka sidayna loo soo guray diyaaradda la soo saaray markii la soo saaray diyaaradda waxa dhaanay waa alxamdulillah hadaba diyaarad Soomaali saaranay qodkiina nala wado alxamdulillah dib malahan marka imisa qof diyaaradda Juba Airways marka ku raacdeen aad isleedahay oo ku tagteen waxaan qiyaasaa diyaaradda 67 qof meelahaas 67 qof kama yareen sabta diyaaradda waxaan qiyaasay 8 qof ina qaad diyaaradda aniga bas ina qaaday cid kale ma qaadin aniga bas ina gudush waa gartay isla 18 bishii 7 Juulaay Muqdisho la idinka dajiyay marka diyaaraddu waxay u socotaa Malaynaa Nairobi 2 saac ma u socotay marka xamar laga dejiyay aniga wax yar ciiso aan ka dhaxgalay markii diyaaradda la idin saaray Nairobi waxaad sheegtay inaad dalbateen in kantiinadaha la idinka furo oo la idin diiday walaal horto nimanka waa la hadalnay nimanka Kenyaatiga diyaaradda xataa Kenyaatiga saarnay niman askar oo Kenyaatiga saarnay wala raacdo oo ilaa xamar idin tagay ilaa xamar la tagay iyo ninka diyaaradda wada nin Soomaali ahay wala hadalnay waxana walaalayaal naga furo waddanka inuu socono iyo diyaaradda Soomaali ma lahaano anaga criminal maniin dad dilmaniin walaalayaal gacmaha naga furo gacmaha dhiigga lagu dhigay gacmaha maartay waan xanuunaya naga furo inta kale waxa waaba ceebaan ku dhahay waddanka dagdagna naga soo xirin criminal in laga dhigo hada ceebaan ku dhahay naga furayo mid ku furay dheer waayo sharciga diyaaradaha iyo heshiiska kale waxa waa qofka in Soomaaliya soo xirin sidii Soomaaliya ku tagana marka Soomaaliya tagnay katiinada laga furay waa gartay marka sheeka dhacda ay sheegtay katiinadii markii la idinka furay ee ciidamadii booliska adinka warniyo wallahi inuu aad baa uga xumaaday arrimaha noocaas oo kale ah waddanka marka waddankaaga hooyo ay maato meeshii laga rabay in macnaha lagu soo dhaweeyo xataa aglistii niyadda lagu dhiso lagu yiraahdo waa dhacday waa la soo tarxiili jiray habay ma soo dhawaada waddanka soo dhawaada xataa lama dhihin saacad booliska loo diyaariyay katiinada laga furtay jawaani soo diyaarsatay jawaani labada isku qabsay heedha katiinadaha u baahanahay had kadib diyaaradda markay soo degayso jawaanaha soo diyaarsanayna oo katiinadaha ku shubno katiinada caadi ma ahayn inaba caadi ma katiinada u baahana marka katiinadihii aba idinka qiimo badnaaday adinka ay isku dagaaleen waaba qaracnaba aniga xirxiran niman dhahay katiinada u baahanahay anaga marka niyad ahaan waaba ka dhiman Soomaalida waa gartay markii kale aad gudaha airportka gashayna waraaqihii lagugu masaafuriyay ayaa sidoo kale isku qabsateen kuwa immigrationka horta diyaaradda markaa ka deganay booliska lala soo diyaariyay booliska badada gutaan qasaba gaari lagu saaray airportkii irdisana la keenay dagaaladii waa la daba kacay waraaqaha keenay leeyahay marka qofkii karta mala waraaqa waa in ka taagay ana waxaan ku dhaanay yar ka wadnay waxaan ku dhaanay macnaha weelisha Soomaalida qaar waxa jira Soomaaliya oo Soomaali macnaha Soomxamara weligeed aan digin oo gobolada fakiimada hatta weel waxaan ugu jira oo weligiisba aan macnaha sharci hataan qaadan sharciga hataa naftiisa loo tisay wiil Soomaali atas asoo kiyas Soomaali meel samaysan dal Soomaali meel samaysan marka wiilku wuxuu ku dhahay walaayaalo hadii macnaha waxaan ay tarxishan guriga ku aad diyaarad ka raacaya baadiide ma yedhe aniga way diiday sharcigan ana iskala maadaama ay ku tarxishan iskala say u qaadan ma yedhe sharciga guriga bartaadiisa adan xabaaysan waa diidna dagaal yar meesha ka dhacay markii dambe waxay noo ogolaaday in koobina siiyaan ana waxaan ku dhahay koobi sii way waa gartay markii aad Muqdisho tagtay marka adigu waxaad ka soo jeedaa Hiiraan gaar ahaan degmada Moqokori marka waxaad isku dayday inaad bal dadkii weydiiso tira diyaarad ma tagtaa maba aadan ka warqabin marka maadaama xabsi muddo sanad aad Mareykan ku jirtay xaaladda Soomaaliya iyo sida isku bedbedelaysa wax wara kama hayn waxa lagu sheegay in magaaladaadii aadan tagi karin Moqokori oo nimankii al-shabaab ay haystaan bal arintaasina sidee kula noqotay markii aad maqashay walaal waxa horta airportka markaan galay waxa dhacday aniga jiwiga ma la socon telefoon ma dhar maana wadan wax la yiraahdo kaba maana wadan dharkii xabsiga bisa wata oo jaakadii cadeed iyo surwaalkii xabsiga bisa wata midda kale aniga lambar ma wato qof aan wici karana ma haysto nafaad telefoon ma wato marka waxaan ku dhahay wiilasha wareystay waxaan dhahay diyaarad oo inta ka bixiso maadaama dawladda Soomaaliya aniga meeshan aan qasab lagu keenay maadaama gobolkaas aan ka soo jeedo gobolka dadka degan aan isdhahay macnaha meeshiisa macnaha qaraabada ku dhiday waxaan dhahay Buluburta rabaa marka waxa la dhahay Buluburta hada tagto iyo Buluburta xageys waxaan dhahay Moqokori oo socda meel Moqokori ayaa ku dhashay meesha oo socda
marka waaba liigu qosqosin waxa la yiraahday takimaati maxaan ku dhaanay xabsi ka imaaday okay xabsi ma ka imaaday warniyo muqul digaalo waa la qabsaday ka digaalo waa laga soo qaxay haddana tarbiy meel kale waa laga soo qaxay maxaas meel yiraahday digaal ka socda la sheegayo macnaha oo laga qaxay oo digaalo socdo marka aniga waan qaracmay markay macnaha maadaama lambar aan ahayn meesha ku socdaan digaal ka socdaan meesha macnaha asbahay hooyada iyo familkii ana soo boqdo waxa la dadkaas ay qaxeen door ku jiraan ciise aadan kaaga mahad celinaya wareysiga waa aad ugu mahadsan tahay wareysi wanaagsan oo ahaa inkastoo nagu dheeraaday dib malahan waa kaaga mahad celinaya wareysiga adigana waxaan ku leenahay sidoo kalena ilaaha ku yasiro maadaama wadankii aad muddo ka maqneed haddana aad tagtay mahadsanid mar kale aywa mahadsantahay aad mahadsantahay